tani waa sheekada nin lagu magacaabo Barkang oo ah jilaa caan ah oo soo koraya. Barkang waqtigaas waxa uu gaadhay heerkii ugu sarreeyay ee xirfadiisa ilaa heer ay hooyadii ka iibsan karto wax kasta oo ay rabto oo adduunka ah. Wuxuu hantiyey iyo shaqadiisa labadaba taasoo ka dhigtay inuu ku faano hantidiisa. Kang wuxuu ku nool yahay guri dabaq ah oo qaali ah oo runtii qaali ah. Meel kasta oo uu tago waxaa had iyo jeer la socda maamulihiisa oo lagu magacaabo Joyon. Waagaas Joyon wuxuu ahaa jilaa laakiin ma uusan helin door wanaagsan. Ugu dambeyntii wuxuu go'aansaday inuu joojiyo jilista kadibna wuxuu noqday maamulaha Kang si uu u sameeyo nolol. Wuxuu mas'uul ka ahaa maareynta arrimaha Kang iyo jadwalka. habeenada ka mid ah Kang waxa uu ka qayb galay munaasabad loo qabtay filim sameeyayaasha halkaasoo lagu abaalmariyay atooraha ugu wanaagsan ee ragga ah. Masraxa Kang ayaa khudbad ka jeediyey isagoo sheegay inuusan filaynin inuu xilligan awoodi karo tan iyo markii uu bilaabay xirfadiisa jilaanimo isagoo og inuu bilaabay inuu si dhib yar wax u haysto oo uu ka yimid meel fog. Meel kale gabadh lagu magacaabo Seoyeon ayaa daawatay Barkang oo abaalmarin ka helaysa TV-ga. Seoyeon wuxuu ahaa Kang hore markii uu saboolka ahaa. Waxay hadda ka soo noqotay Seoul. habeenkii Christmaska December 24-keedii Joyon wuxuu rabay inuu aado guriga si uu waqti ula qaato qoyskiisa laakiin Kang ayaa ka codsaday inuu joogo oo uu raaco baar. Isla baar uu wax badan cabi jiray ka hor inta uusan noqon jilaa caan ah. halka ayay ku sheekaysanayeen iyagoo xasuusan waayahoodii hore. Joyon iyo Kang dhab ahaantii waxay si wada jir ah uga doodeen door ay ku lahaayeen maalintaas ilaa ay ka soo galeen wareegii ugu dambeeyay. Si lama filaan ah ilaa hadda nasiibka leh ayaa dhanka Kang ku jirtay isagoo ku guulaystay bandhiga oo uu noqday jilaa caan ah halka Joyon uu joojiyey jilista wuxuuna noqday maamulaha Kang. Joyon wuxuu xasuustay in haddii kaliya Kang uusan dhaafin bandhiga laga yaabo inuu lahaan lahaa qoys oo ay weheliyaan Seoyeon oo uu ku noolaado farxad. Markii uu taas maqlay Kang wuxuu xusuustay sidii uu Seoyeon ugu tuuri jiray baarkan hal sano ka hor. Sidaa darteed waxay ku kala tageen. Kang wuxuu sii wataa xirfadiisa jiliin halka Seoyeon uu aadayo New York si uu sii qoto dheereeyo aqoontiisa fanka. Markii ay baarka ka tageen Kang waxa uu weli rabay in Joyon uu u raaco si uu u cabo baar kale laakiin sababtoo ah waxay ahayd habeenkii Christmaska. Joyon wuxuu rabay inuu qoyskiisa kula joogo guriga. Sidaas darteed wuxuu u sheegay Kang inuu taksi qaado oo keligiis guriga aado. Markii taksiga lagu jiray Kang oo sakhraansan ayaa la sheekaystay darawalkan ayaa nasiib u yeeshay inuu haysto jilaa caan ah sida rakaabkiisa habeenkii Christmaska. Darawalku waxa uu u qaatay in Kang uu ku nool yahay riyadiisii oo ay tahay in uu ku faraxsan yahay in uu haysto wax kasta oo ninku weydiisan karo laakiin Kang waxa uu ku jawaabay in darawalku aanu garanayn waxa uu dareemayo. Darawalkii ayaa markaas ku jawaabay in taajirnimada iyo caannimadu aanay damaanad ka ahayn farxadda iyo dareenka raalinimada adduunkan. Si lama filaan ah oo aad moodo inuu darawalku garanayo waxa qalbiga Kang ku jira ayuu weydiiyey su'aal aan macno samaynayn. Waxa uu weydiiyey waxa uu Kang samayn doono haddii la siiyo fursad uu wax kaga bedelo wixii hore. Darawalka ayaa xitaa ogaa in Kang uu ku fikirayay inuu bedelo wixii hore markii uu kala tagay Seoyeon oo uu sheegay inuu gacan ka geysan karo inuu fikirkaas u rogo xaqiiqda. Subaxdii xigtay Kang wuxuu ku toosay sagxadda alwaax ee guri suuban. Waxa uu aad ugu jahawareeray in uu meel aanu aqoon iyo in uu arko laba caruur ah oo hortiisa jooga oo u yeedhaya aabe. Xitaa aad ayuu uga naxay markuu arkay qof uu si fiican u garanayo. Jacaylka muddada dheer lumay ee noloshiisa Seoyeon waa xaaskiisa. Kang ayaa lagu macneeyay in uu ku sugnaa gurigiisa labada caruura ay ahaayeen caruurtiisa. Seoyeon waxa kale oo uu mooday in Kang aanu weli ka miyir qabin sakhraannimadiisa sababtoo ah aad buu u cabbay xalay. Kang weli ma uusan howlgelin wixii isaga ku dhacay subaxaas. Wuxuu isku dayay inuu la xiriiro Joyon laakiin lama xiriirin. Kang wuxuu go'aansaday inuu ku laabto aqalkiisa. Si caadi ah ayuu gudaha u galay oo uu ku wareeray waardiyihii sababtoo ah looma aqoonsanin inuu ka mid yahay dadka deegaanka. Kang wuxuu si caadi ah u fuulay dabaqa sare wuxuuna isku dayay in la isku daro si uu u furo qufulka albaabka laakiin si uun ma shaqayn. Wuxuu la yaabay markuu arkay qof albaabka gurigiisa ka furaya. Waxa uu u maleeyay in tuug uu soo galay aqalkiisa. Dabadeed wuu jabay oo wuxuu sameeyey rukumo si ay ilaalada u sugaan. Jawigu wuxuu noqday jahawareer sababtoo ah milkiilaha guriga wuxuu u maleeyay inuu Kang yahay jacaylka xaaskiisa. Kang wuxuu isku dayay inuu sharaxo inuu yahay jilaa caan ah inkastoo qofna uusan aqoonin. Wax yar kadib Kang wuxuu ku dhammaaday saldhigga booliiska. Wuu xanaaqay oo wareeray. Booliisku waxay ku macneeyeen in gurigu aanu kiisa ahayn sida ku qoran kaydka xogta. Kang waxaa looga tegay naxdin si uu u helo wax walba oo uu ka lumay hal habeen gudaheed. Kang aad ayuu u xishooday markii Seoyeon u yimid inuu soo qaado. Seoyeon wuxuu sheegay inay tahay xaaska Kang laakiin Kang wuxuu sheegay inaysan ahayn xaaskiisa. Dabcan Seoyeon wuu xanaaqay wuxuuna u maleeyay in Kang uu codsanayo furiin. Booliiska ayaa dejiyey waxayna sheegeen in Kang uu u muuqday mid wareersan sababtoo ah wuxuu sheegtay inuu yahay jilaa. Labadoodii ayaa dabadeed gurigii aaday. Kang waxa uu weli la yaaban yahay in ay run tahay in uu xidhiidhkoodu soo noqnoqday. Seoyeon waxa uu mar kale Kang dharbaaxay si uu u kiciyo. Isla markaas Kang wuxuu arkay taksi ag marayay. Kadib wuxuu xasuustay dhacdadii habeenkaas dhacday. Kadib markii uu la cabay Joyon waxa uu qaatay taksi oo la hadlay darawalkii kadibna waxa uu ku dhammaaday halkaas. Markii uu guriga yimid Seoyeon ayaa mar kale ku canaantay hadallo aan macno lahayn.
Kang ayaa markaas bartay gabadhiisa Rohi. Waxa uu u sheegay in uu xusuusta ka lumay. Noloshiisii ayuu xasuusan waayay. Waqtigaas Seoyeon wuxuu sheegay inuu aadayo saaxiibadiis kadib fasalka fanka, sidaas darteed wuxuu u sheegay Kang inuu ilaaliyo carruurta. Dabcan Kang ma uusan rabin oo wuxuu u sheegay Seoyeon inuu shaqaalaysiiyo ilmo ilaaliya beddelkiisa. Dhegaysiga taas Seoyeon wuxuu u maleeyay in Kang weli sakhraansan yahay. Waxaa intaa dheer kirada guriga weli lama bixin, marka Seoyeon wuxuu u sheegay Kang inuu joojiyo khamriga oo uu ka caawiyo bixinta biilasha. Kang weli wuxuu rabay inuu helo jawaabo ku saabsan shalayto. Tagsiile si uu Kang u soo kaxaystay carruurtii si uu u helo jawaabta. kadib waxa uu aaday shirkadii taksiga si uu wax uga weydiiyo taksiga uu soo raacay habeenkii ciida masiixiga laakiin si murugo leh kadib markii uu sheegay shaqaalihii goobta ku sugnaa sifada taksiga waxa ay shaqaalihii halkaasi ku sugnaa u sheegeen in aanu jirin taksi u eeg sifadaas si aad u hesho macluumaadka ku saabsan noloshiisa cusub Kang waxa uu wax ka weydiiyaa carruurtiisa mataanaha Rohi ayaa sheegay in Kang uu ahaa aktar balse uusan caan ahayn Roha ayaa markaas tusay Kang oo ku jiray barnaamij TV Kang waxa uu la yaabay in uu halkaa ku arkay isaga oo door ka ciyaaraya habeenkii Sugyeon wuxuu u sheegay Kang inuu u sheego wixii dhacay saaka markii uu soo dhexgalay qof gurigiisa Kang ayaa markaa sharaxay in uu dhab ahaantii ka yimid adduunyo ka duwan kadib markii uu qaatay taksigan qariibka ah xalay noloshii uu la noolaa Sugyeon waxay ahayd nolol uusan dooran taksilihiina wuxuu siiyey Kang si uu Kang hadda ku ekaado Sugyeon wuxuu si cad u maleeyay in waxa Kang sheegay aysan ahayn wax aan macno lahayn markii Kang uu ku sigtay inuu seexdo isagu ma dareemin raaxo la seexashada Sugyeon kadib waxa ku dhacay isaga iyo iyada xaqiiqadiisa kadib markii uu keligii seexday markasta wuxuu hadda ku dhameeyay inuu la seexdo kii uu hore u jeclaa maalintii uu la joogay qoyskiisa cusub qoyska uusan weligiis moodin inuu ugu dambayntii bilaabi lahaa waa in uu wada seexdaa waxna wada cunaa carruurtiisa mataanaha ah ayuu la macaamilaa gurigana waa in uu ahaado aabbe iyo nin Kang lama lahayn xidhiidh shucuur leh oo mataanaha ah welina uu la qabsan kari layahay noloshiisa cusub waa nolol soo noqnoqota oo caajis ah isaga habeenada ka mid ah Sugyeon waxa uu xasuusiyey Kang in uu lahaa jadwalka toogashada ee Mystic TV ee film Mystic TV wuxuu ahaa kanaal TV ah oo leh qiimayn hoose iyo filimaan xun inkasta oo uu si fiican u soo bandhigay reerkiisuna ay ku faani jireen haddana waxa uu mooday in kanaalkani uu yahay qashin waqtigaas saaxiibkiis Wohee ayaa u yeedhay oo ka codsaday inuu ka caawiyo kor u qaadida waxqabadka masraxa waxaa soo baxday in marka laga reebo joogitaanka TV-ga Kang noloshan ayaa sidoo kale lacag ka samaynaysay bandhigyada tiyaatarka markii ugu dambayntii ay kulmeen Kang ayaa weydiiyey Wohee sababta uu ula xiriiri waayay Joyeon Wohee waxa uu sheegay in Joyeon uu hadda u hoosay si uu u xayeysiiyo filimkiisa cusub kadib markii la cadeeyay waxay soo baxday in Joyeon oo ahaa maamulihiisii xaqiiqadiisa uu ahaa jilaa caan ah oo ku jira xaqiiqadan Kang wuxuu xaqiiqsaday in shaqadiisa lagu bedelay Joyeon maalin maalmaha ka mid ah Kang wuxuu isku dayay inuu aado xafiiska wakaalada halkaas oo Joyeon ay ka shaqayso iyada oo jebinaysa dabaqa sare ayuu u baxay ugu dambayna waxa uu suurta gashay in uu la kulmo Joyeon oo weli aqoonsan isaga kadib wuxuu ku casuumay Kang inay wax wada cunaan laga soo bilaabo hadalka Kang wuxuu helay macluumaad ah in Joyeon uu noqon karo jilaa sababtoo ah Kang uu ka baxay intii lagu jiray bandhigii ugu dambeeyay dartiis uu u baaxsanayo Seoul garoonka diyaaradaha taasi waa sababta Joyeon ay u soo muuqatay oo ay u noqotay jilaa xaqiiqadan kadib markii ay la qadeeyeen Joyeon Kang waxay markaas aaday si ay ula qabsato Seoul gudaha galerikeeda marka laga yimaad ereyada Joyeon Kang wuxuu ogaa inuu si ula kac ah u lumiyay fursadda dhageysiga dartiis uu u baaxsanayo Seoul si ka duwan xaqiiqada ayaa ka timid halka Kang bedelkeeda uu go'aansaday inuu jebiyo Seoul si uu sii wato xirfadiisa tan iyo markaas daaweyntiisa Seoul way isbedeshay Kang ayaa weydiisay waxa dhici lahaa haddii Seoul uu aado New York 10 sano ka hor laakiin Seoul waxa ay sheegtay in ay nolosheeda hadda ka door bidayso Kang iyo mataanahooda sheeko gaaban habeen Wohee iyo Kang waxay qabteen bandhig faneedkooda Joyeon oo habeenkaas goobjoog ahaa ayaa seexday sababtoo ah wuu hurday daawashada bandhiga intaa kadib dhammaantood waxaa casho u sameeyey Joyeon waxa uu u muuqday mid xiiseeya Wohee kaas oo noloshiisa kale runtii isjeclaaday Joyeon xitaa wuxuu uga tegay kaararkiisa deynta si ay ugu isticmaalaan inay ku bixiyaan waxay cunaan inta ay rabaan guriga Kang waxa uu Seoul iyo asxaabteeda kula caweynayay cuntadii uu maqaayada ka keenay mar hore inkasta oo Kang uu yahay jilaa aan si fiican loo aqoon haddana aad ayuu caan uga yahay dumarka xaafadda maalintii xigtay aroortii gurigooda waxaa soo booqatay hooyada Kang taasoo xaqiiqadan aad uga duwan hooyada dhab ahaantiisa hooyadii way xanaaqday gaar ahaan kadib markii ay ogaatay in Kang uu iska casilay shaqadii uu hadda hayay kadib markii ay booqatay Kang iyo carruurteeda ayeeyo u tahay Kang waxa ay geysay terminaalka si ay gurigeeda ugu baxdo waxay u ducaysay in wiilkeeda uu helo door wanaagsan sida Joyeon oo kale oo ay siisay xoogaa lacag ah waxay ku amartay inuu reerkiisa daweeyo oo uu ubaxyo u soo iibiyo qabriga aabihiis codsigeeda waxaa isla markiiba fuliyey Kang laakiin sida caadada ah Kang ma uusan doonaynin inuu aado qabriga aabihiis sababtoo ah waxaa soo baxday in Kang uu xasuus xun ka lahaa aabihiis sidaas darteed ma uusan doonaynin inuu yimaado qabriga aabihiis waqti kale Kang wuxuu aaday bandhig jilidiisu dhab ahaantii waxa ay ahayd mid wanaagsan laakiin sababtoo ah hanti dhowruhu waxa uu ogaa in Kang uu yahay saaxiibka ugu fiican ee Joyeon oo inta badan ay la socdaan isaga waxay u sheegeen Kang inuu ku qanciyo Joyeon inuu ka ciyaaro filimkiisa kadib wuxuu la kulmay Joyeon oo u sheegay arrintii
Joyon aad ayuu ula yaabay in uu maqlo in intaas dheer xaqiiqadu waxay ahayd in uu si ula kac ah u qaadan waayo aragnimada sababtoo ah wuxuu rabay Kang inuu helo doorka si uu u awoodo inuu lacag u sameeyo qoyskiisa. Joyon waxa uu fahmay in Kang aanu waqtigiisa ku bixin karin qaadashada daaweynta kadib sababta oo ah Joyon waxa uu u baahday qof uu ku kalsoon yahay in uu u shaqeeyo waxa uu go'aansaday in uu Kang u siiyo shaqo maamule ahaan. Kang si uun buu u diiday dalabkaas sababtoo ah waxa uu dareemay in noloshiisii gebi ahaanba isbedeshay oo uu ka niyad jabay waxa uu haysto. Maalintii xigtay Kang waxaa dhib kala kulmay la xiriirka Seolyeon. Waxa uu sidoo kale helay ogeysiis ah in aysan aqbali doonin xiisadaha mar dambe galerikeeda. Dhibaato kale ayaa timid markii isaga iyo labadiisa caruur ee mataanaha ah ay ku ciyaarayeen goobta ciyaarta. Galabtaas Roh waxa uu wax ka weydiinayay saxiixyada ay jilayaasha inta badan siiyaan taageerayaasha. Kang ayaa markaas tusay sida loo saxiixo. Markii ay aragtay Rohfi waxa uu u duceeyey in maalin aabaheed awood u yeesho in uu u saxiixo buug gacmeedka dadka kale sida jilayaasha caanka ah sidoo kale. Si lama filaan ah, Roha ayaa shil galay. Isla markiiba waxa ay ula carareen cusbitaalka. Wax yar kadib markii Seungyeon timid, waxaa la ogaaday inay ka shaqaysay dukaan ku habboon. Kang wuu xanaaqay sababtoo ah Seungyeon uma uusan sheegin oo wuxuu ka dhigay mid naxariis badan madaxa qoyska. Kadib Kang wuxuu hubiyey atamkiisa wuxuuna ogaaday inuusan wax lacag ah ku jirin. Kang wuu ka niyad jabay xaqiiqadaas sababtoo ah waxba ma uu qaban karin hal eberkii sano ee la soo dhaafay. Isagoo og inuusan lahayn doorasho kale waxaa lagu qasbay inuu aqbalo dalabka Joyon si uu u shaqeeyo maamulihiisa. Isaga oo khibradiisa u arkayay Joyon oo ah maareeyihiisa waxa uu shaqadiisa ku bilaabay diyaarinta ajandayaal isaga oo u adeegaya Joyon goobta toogashada iyo weliba isaga oo ka ilaalinaya babarasi. Kang sidoo kale kama labalabayn inuu siiyo Joyon talo ku saabsan codsiyada mushaharka ee filimadiisa ama xayeysiisyadiisa. Kang wuxuu isticmaalaa khibradiisa hal eber sano si Joyon uu lacag badan u sameeyo. Mararka qaarkood Kang wuxuu kaloo ka caawiyey Joyon inuu akhriyo qoraalka ilaa heer uu Kang ku qaaday shucuur sababtoo ah ma uusan akhriyin qoraal muddo dheer. Dhab ahaantiisa aad buu uga caajisay inuu qoraalka xifdiyo. Joyon waxay ku qaadatay waqti aad u badan barashada qoraalka taasoo ka dhigtay in waxyaabaha dheeriga ah ay u adkaysan waayeen inay sugaan isaga oo is-asishay. Ugu dambeyntii agaasimaha ayaa go'aansaday inuu u soo bandhigo doorka Kang sababtoo ah wuxuu ogaa in Kang uu yahay atoore. Dabcan Kang wuxuu rabay inuu sameeyo. Kang shaqo fiican ayuu qabtay. Ficilkiisii uu ku fuulay faraska ayaa xitaa ammaan ka helay agaasimaha. Taa beddelkeeda Joyon oo ah jilaaga ugu weyn wuxuu fuuli karaa oo keliya faras leh guryaha toogashada. Si ka duwan noloshiisa markan Kang wuxuu qabtay shaqadiisa jilaannimo si buuxda iyo xirfad leh. Xataa reerkiisii guriga joogay ayaa la yaabay waxqabadkiisa. Kang wuxuu kaloo bilaabay inuu noloshiisa ku raaxaysto isagoo ah madaxa qoyska. Reerkiisa ayuu ka jecel yahay sidii hore. Noloshiisii aad bay uga wacnayd sidii hore. Si raaxo leh ayuu wax u cuni karaa oo biilasha ayuu ku bixin karaa waqtigii loogu talagalay sababtoo ah dakhligiisu wuxuu ahaa mid degan. Laakiin sida muuqata tani way beddeshay oo waxay soo jiidatay dareenka Seolyeon gaar ahaan markii Kang uu ka haystay guriga Joyon kaas oo Joyon uu amaahiyey inay ku noolaadaan. Markaa Yeon kuma raacsanayn qorshaha. Waxay u malaynaysay in lacagtu gebi ahaanba ka beddeshay Kang. Kang waxa ay rabeen in ay iloobaan oo ay ka tagaan gurigooda yar oo ay wax walba ka bilaabeen iyaga oo xasuus badan ku reebay mataanaha. Ma aysan doonayn in ay taas ku weydo markay u soo guurtay gurigan. Dhanka kale Kang wuxuu rabay keliya inuu siiyo waxa ugu fiican xaaskiisa iyo carruurtiisa, laakiin nasiib daro Kang weli wuxuu u dagaalamay sidii isaga oo kale noloshiisa hore. Seolyeon waxa ay haysteen ma ahayn waxa ugu muhiimsan. Sababtaas awgeed ayay dood bilaabeen. Habeenkii Kang oo aan seexan karin ayaa aaday qolka carruurtiisa. Waxa uu gartay in noloshii uu hadda ku jiro raaxadu aanay ahayn wax ay tahay in la raadiyo. Kang ayaa isla markiiba wax ka bartay khaladaadkiisii hore ee noloshiisii hore inkasta oo uu ka fog yahay nolol raaxaysi ah balse xaaladan ayaa ka farxisa halkii uu taajir noqon lahaa ama uu keligiis noolaan lahaa qoys la'aan. Maalmo toddobaadyo iyo bilo ayaa ka soo wareegay. Kang waxa uu suurta gashay in uu sii socdo oo uu ilaawo noloshiisii hore. Waxa uu xitaa ku guulaystay in uu soo afjaro doorkiisii riwaayadii uu la jilay Joyon si cajiib ah. Kang ayaa sidoo kale lahaa taageerayaal badan xitaa agaasimuhu wuxuu ammaanay waxqabadkiisa wanaagsan ilaa hadda. Agaasimuhu wuxuu sidoo kale sheegay in Joyon iyo Kang ay tahay inay beddelaan boosaska. Joyon ayaa kaga haboon inuu maareeyo noqdo Kang. Kang waxa kale oo uu helay fadhi waraysi gaar ah kaas oo magaciisa ka dhigay jilaa dheeraad ah ilaa maamule iyo maamule ilaa jilaa xirfadle ah. Guusha uu gaaray ayaa sidoo kale ka farxisay qoyskiisa, laakiin sidaas oo ay tahay Kang wuxuu weli maamule u ahaa Joyon. Markii uu Joyon helay abaalmarinta jilaaga ugu wanaagsan waxa uu si la yaab leh ugu mahad celiyey Kang taageeradiisa sababtoo ah isaga la'aantiis waxa uu ogaa in aanu taas ku guulaysan karin haddii aanay isaga dartii ahayn. Joyon ayaa sidoo kale sheegtay in Kang uu ahaa atoore ka wanaagsan naftiisa. Si loogu dabaaldego abaalmarinta Joyon ayaa weydiisatay Kang inuu ku cabo baarka. Waxa uu u sheegay Kang in ay jirto door ka bannaan riwaayada soo socota, laakiin toogashada ayaa lagu sameeyey dibadda muddo 3 bilood ah. Kang wuu diiday dalabka sababtoo ah ma uusan rabin inuu ka tago qoyskiisa muddo dheer. Kang wuxuu doorbiday inuu shaqo kale raadsado. Waqtigaas Joyon wuxuu ugu dambeyntii sheegay inuu jeclaaday Wohee, gabadha tomboyish. Wuxuu ku casuumay inuu arko Kang oo la nool qoyskiisa.
Joyon xitaa si badeed ah ayuu naftiisa ula bedelay Kang. Markii ay dhameeyeen Wohe waxay soo qaadatay Joyon halka Kang uu doortay inuu taxi ku baxo. Habeenkaas waxa uu ahaa habeenkii Christmaska sida sanad ka hor oo kale markii nolosha Kang ay isbedeshay. Markii uu galay taxigii darawalkii ayaa markaas xasuusiyay in waqti yar ay ka hadsan tahay oo Kang uu ku noqon doono noloshiisii asalka ahayd. Ereygaas ayaa si lama filaan ah u xasuusiyay noloshiisii hore, laakiin Kang ma uusan doonaynin inuu dib u laabto oo wuxuu rabay inuu joogo. Nasiib darro wuu awoodi waayey, waa inuu ku soo noqdaa xaqiiqadiisa markii la gaadhay. Kang wuu xanaaqay sababtoo ah darawalka ayaa wareegayay isagoo isku habeynaya noloshiisa si lama filaan ah ayaa gaariga loo joojiyey. Isla markaas ayay ahayd markii Kang uu ogaaday in darawalku yahay aabihii oo buka. Aabihii ayaa u sheegay inuu ka qoomamaynayo inuusan waqti la qaadan Kang sababtoo ah wuxuu diiradda saaray shaqada. Waqtigaas wuxuu noqday mid shucuur ah sababtoo ah dhab ahaantii Kang weligiis lama hadlin aabihiis ilaa maalintii aabihiis dhintay. Kang ayaa markaa ku laabtay gurigiisii. Isla markiiba wuxuu isku duubay carruurtiisii. Habeenkii ayuu seexday isagoo eegaya wejigooda aan waxba galabsan, waayo wuxuu ogaa subaxda dambe inuusan mar dambe la kulmi karin. Intaa kadib Seoyeon wuxuu tusay sawirka Kang ee aabihiis markii uu yaraa. Xiriirkoodu ma ahayn mid gaar ah, laakiin dhacdadii taxiga ayaa wax ka beddeshay aragtida Kang ee sida qiimaha leh ee wakhtiga qoyska. Wuxuu ku dhameeyey maalintiisii ugu dambaysay isagoo la seexday xaaskiisa isagoo isku dayaya inuu iska daayo daqiiqadaas macaan ee uu hadda ogaaday. Subaxii xigay Kang waxa uu ku soo toosay aqalkiisii qaaliga ahaa, isaga oo murugaysan kadib noloshii wacnayd ee uu ku noolaa oo dhan laga saaray. Isla markaana waxaa soo muuqday Joyon. Kang ayaa markaa weydiiyey Seoyeon oo bandhig ku qabtay magaalada. Joyon ayaa xaqiijiyey oo bixiyey xogta in maanta ay ahayd maalintii ugu dambaysay bandhiga. Kang aad ayuu ula yaabay markuu maqlay. Waxa uu markii hore u haystay in wakhtigu ka dhamaaday sanad, balse waxa soo baxday in noloshiisa dhabta ah ay maalin keliya ka soo wareegtay. Ka hor inta uusan bixin, Kang wuxuu u sheegay Joyon inuu codsado bandhig kale oo uu bixin doono. Kang wuxuu aaday si uu u helo goobta bandhiga. Markii uu yimid, wuu argagaxay sababtoo ah xafladdu way dhammaatay, shaqaaluhuna waxay ku ururinayeen sawirro halkaas, laakiin Kang ayaa la yaabay markii uu arkay arrinjiyeyn leh sawirka guriga uu ku nool yahay riyadiisa. Joyon ayaa si lama filaan ah u soo baxay. Waxay weydiisay sababta uu halkaas u joogo. Iyada oo aan shaki la'aan, Kang ayaa weydiiyey sida Joyon uu ula yimid rinjiyeyntaas. Kadib Kang wuxuu Joyon geeyey meel lagu arkay isla guriga Joyon sawirkiisa. Kang wuxuu aakhirkii xaqiiqsaday in kastoo ay riyo ahayd, haddana ay ahayd wakhtigii ugu farxadda badnaa noloshiisa. 2 sano ayaa ka soo wareegtay, Kang wuxuu guursaday Joyon. Waxa kale oo ay haysteen carruur mataano ah oo ay u kala bixiyeen Rohe iyo Roha, balse ka duwantii uu ku riyoon jiray. Markan waxa uu noloshiisii la mari lahaa Joyon bilowgii. Subscribe saar channelka sababtoo ah waxaa jira sheekooyin kale oo badan oo xiiso leh oo ku sugaya halkaas.